cashirkeena galabta waxaan qaadanaynaa erey English vocabulary ama eraya cusub marka dhegeysi haboon. English vocabulary ama English new words waa eraya cusub oo English aan isku daynina af Soomaali ku turjuno insha Allah. English new words af Soomaali eraya cusub. Professional waa xirfadle, qof xirfadle oo aqoon fiican u leh waxa uu qabanayo. Optimize ereygan asalkiisu ahaa tayo. Optimization waa tayeynta shay awoodiisa la kordhiyey ama qof aqoontiisa la kordhiyey. Tayo waan wada garanaynaa. Optimization waa tayeyn ay noqonaysaa. Satisfied ku qanacsan. Summarize soo koobid. haddii la yidhaaho report soo diyaari oo kale ama cashir macallimiinta tusaale cashirka dhigo oo kale waxay sameynayaan wax badan ay soo akhrinayaan, wax yar oo muhiim ay kasoo diyaarinayaan. maxaa la yidhahaa? Nuxur. Summarize soo koobid, wax la soo koobay. Content nuxurka ama nuxurka waa wax badan ama war baa laga sugayay badan, tusaalahan oo kale inta ugu muhiimsan aad kasoo qaadatay waxaa la yidhaahdaa content, nuxurka ama muhiimadda. Moral consideration waxa weeye waa inta badan waxaa loo fiiyo laga dhiga anshax ama dhaqan ha noqoto ama niyad ha noqoto, laakiin moral consideration waxa weeye tixgelinta anshax waa wax dhaqanka iyo diinta iyo habdhaqanka qofka ama bulshada ku xidhiidha ama la xidhiidha. Moral consideration waxay noqotay tixgelinta anshaxa. Objective ujeedo. Regarding ku saabsan. Critical thinking fikirka muhiimka. macnaha waxbaad ka fikiraysaa muhiim amaanta fikradaha ama fikirka muhiimka ah. Analytical falanqayn. laba qof saddex qof wax meel fariisteen waxbay faaqideen ama falanqeeyeen ama ay ka hadleen. Perfect skill xirfadaha dhammaystiran ama kaamilka ah. Xirfad dhammaystiran. Perfect skills. He has a perfect skills. Hebel wuxuu leeyahay xirfad kaamila ama dhammaystiran. Acquire helid. We acquire water from the tap. biyaha tuubada ayaan ka helaa. helid waaye ereygan. Good waa wada garanaynaa wanaagsan, waa shay wanaagsan. Better ka sii fiican. Good waa wax wanaagsan, better ka fiican, shaykii ka sii fiican. Equipped qalabaysan. xafiis si fiican loo qalabeeyey, guri si fiican loo qalabeeyey iyo wixii la mida. waa garanay. Equipped. Appreciated. Hadhayna equipped waxaan dhahnay qalabaysan ama hubaysan. Appreciated mahadcelin. Principle waxaan dhahaynaa mabaadi. Principles waa mabaadi, fikir, aragti ay qof qabo, koox qabto ama ummadi qabto waayo. haddii lagu dhaho what's the principle of Islamic principle haddii la yidhaha ma aragtida aad ka qabta islaamka ama aragtida uu ku dhisan yahay islaamku, mabaadi'da iyo dhaqanka uu ku dhisan yahay bay noqon. dabcan Soomaaligana waxyaala khaldan laga yaabaa. waan garanay. Concept maxay noqotay? Concept fikrad. Event maxay noqotay? dhacdo. Hal maraan ku laabano inagoo dul marayna soo gaabinayna insha Allah. Professional xirfadle. Professional waa xirfadle aan dhahna qof xirfadle. Optimization tayeynta shay la qalabeeyey ama la tayeeyey. Satisfied ku qanacsanaan. Summarize soo koobid. Content waxaan dhahnay nuxurka. Moral consideration waxaan dhahnay tixgelinta anshaxa. Objective ujeedo.
regarding ku saabsan regarding critical thinking fikradaha muhiimka ah analytical falanqaynta wax la falanqeeyey perfect skills xirfadaha kaamilka xirfad kaamil ama xirfadaha kaamilka acquire helid good waxaan dhahaynaa wanaagsan better ka fiican waa la isbarbardhig it's good way fiican tahay tana ka wanaagsan ama kasii fiican equipped qalabaysan waa guri si fiican loogu soo adeego loo hagaajiyaan dhahaynaa appreciate waxaan dhahaynaa u mahadcelin principle mabaadi ama fikir ama aragti concept fikrad event dhacdooyinka maalin walba ina soo maray intaasaan ku daynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.